بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلهي ما هذا كله runtii maanta waxaan soo booqday anagoo ku almiteen garoonkii aan training ku bixin jirnay TV-ga caanka ah ee True Cable Sports oo uu wax weeyaan garowdeen ka yahay Mubaarak Bukaase iyo wax weeyaan dhamac oo runtii wax weeyaan aad ugu mahadnaqayo tartanadii ugu dambeeyay wax weeyaan si fiican oo qiimo badan daadihinayay inta marka ka imaado kulli wax weeyaan waxaan u diyaar garoobaynaa tartankii horyaalka oo bilaabmaya caasimada ka bilaabmay heerkii labaad waxa heerkii saddexaad heerkii labaad iyo kii koowaadna ka bilaabmi doona insha Allah maalinta isniinta runtii waxa weeyaan maanta waxaan sameeynaa mid kamid ah kuwii aan tartanka ugu diyaar garoobaynay gabagabadiisii traininadii kuwaas oo ah in wax weeyaan aan rajeynay insha Allah tartanka inaan meel fiican aan ka gaarno guulo wanaagsan oo insha Allah horna aan wax weeyaan ku bilaabano marka muddadan tartanka wax weeyaan ku almiteynay wax weeyaan adigu ugu yaraan labadii bilood ama saddexdii bilood u dambeeyay waxa weeyaan waan almiteynay waxaan doonay insha Allah tartanka inaan meel fiican iyo meeqaan fiican ka gaarno si taas ay u timaado dadaal iyo hawl badan baan loo baahan yahay marka dadaalkii hawshii faraha badan baan wadnaa alxamdulillah rabbil caalamiin ilaahay baa mahad kale waxa weeyaan waxaan rajeynayaa insha Allah kooxda wasaaradda waxbarashadu inay wax weeyaan meel fiican ay maanta gaadho sidii kii tartankii wax weeyaan horyaalka labaadba ay wax weeyaan meel fiican soo gaadhay insha Allah kan waxaan rajeynaynaa inaan sidii si leeg wax weeyaan dadaalkii aan la nimid iyo ku ka badan baan sii sameeyno maadaama wax weeyaan aanu heerkii koobaad ee wax weeyaan xamaasadiisa xiisaha lahaa aanu dhex nimi kooxii ay ka waayarsan yihiin oo xaaladdu intii ay ka duwan tahay marka taas waxa weeyaan waa ta kale labaad wax weeyaan waxaan iyaduna halkan baaqa uga diranaa wasaaradda waxbarashada oo aan magaceeda muddo dheer ku ciyaarinay وحتى الآن وحويان وزارة وحبرشة وحبلنقاض وصحون وحاسي مانت وزارة دين بلنقاطي أنا كاهنين وحويان تاسن رجينا يدنا إن شاء الله إلى نيجر سان السلام عليكم سعيد علي موسى عيارتي هراء أو عيارتي دي هير كقواد عاصمة هرجيسة كوح لقاشان وسو عياري تاريخ ذا واحد نقون دون تاريخور كعصب أديكو هراء وسو عياري هير كقواد إمكانات توبره هير كقواد اللي يميت كوح دي وزارة وحبرشة الصومالي له bal saaxiibadaada iyo taageerayaashaada kala duwan ee galabta ka daawanay True Cable TV fariinta balaad u dirayso maadaama adigoo ciyaartooy iyo adigoo tababaraaba markan heerka koowaad aad kowsanayso Hargeysa Stadiumna ee kooxaha ku jira heerka koowaad aynu ognahay ee waliba khaasatan kooxihii aad ka soo ciyaartay bal fariinta halkan ka dirayso taageerayaasha kala duwan haday tahay bahda wasaaradda waxbarashada ee taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee wasaaradda waxbarashada مارك أدود ما صار سؤال مهمة رنتي وحويان هذا سؤال شاك سؤال وهذا كل وحويان ده كبدو مرة أضرب باش عيارية مرة وحويان ووقتي وحويان ده أي وحويان أما معلن تحي أما وحويان ده معلق أوضت كي باشي فلقيني تحي مرة أتوبرت هاي مرة ما تتوبران هاي الحمد لله وحن رجيني أرت إن شاء الله وشدي مركي هربت ده باش نوصل ويسي إله هيك رجينا إن شاء الله نوصل ويسو وحويان تغيريش ده تربونا ده وحنا هاي كل كبدو وحويان صدحكل يوناق ويا ما حمانية وحويان كلا محوها كلا تج مركا إن شاء الله وسيدي وناكسن ده أي نسكوب براني كبد عقتها إن أخلاق وناكسن يو كبد قروح بدون وناكسن عن قصة بدي ننتي عن عيارني كوح ذا نحن روتيني يظن إن شاء الله إن وطدي أنا مريم يقولون أي كتاب مران وعيارتنا عن سكتين إن شاء الله وصلنا ديان وعن قباء كل واحد يدخل واحد جاي ودير ولا كلا رتدوي هاي مركا تاسع وحويان إن شاء الله تاسع أورلها وح حنقيا ما أنت وحويان قدوميها عصب أي كوح ده عرفات محمد جامع oo ah gudoomiyaha cusub waxa weeyaan sportskana waxa weeyaan nimanka maanta dadka de waxa weeyaan aqoonta badan u leh ku jira oo ah nin waay araga kooxdana waxa weeyaan inta imika uu nala joogay waxa weeyaan wax badan ku soo kordhiyay aad baan ugu mahadnaqayaa waxa weeyaan tababaraha waxa weeyaan gudoomiyaha oo dhawaan waxa weeyaan gudoomiyaha u magacaabay kooxda loo magacaabay marka waxaan rajeynayaa insha Allah in waqti fiican la qaadan doono meel fiican la gaari doono sidoo kale waxaan mahadnaqayaa gudoomiyaha ku xigeenka Cabdi Yuusuf xogayaha Khadar iyo macallinkayga labaad waxa weeyaan nimcaan sulbacay oo isna ah waxa weeyaan dhalinyaro way araga in fara badan kubadda ku dhex jiray akhlaaq wanaag iyo dadnimo badan aan ku bartay marka insha Allah tarabuunada iyo taageerayaashan waxa weeyaan leenahay waxaan leenahay aad bad u mahadsantiin insha Allah sidii hore idinka farxina insha Allah kana idinka farxin doona hadii Allah qadaro hadiiba aad ku dhawaaqday in ilaa hadda wasaaradda waxbarashada Soomaaliland oo magacooda ku ciyaartaan aydan ka helin sida kooxaha kale ee la midka ah dhaqaalaha ay qaataan ciyaartooygu sidee baad suuqa kala iibsiga u gashaan maadaama heerka labaad ka soo baxdeen oo ciyaartooy soo iibsatay wal marka aad bad baasan tahay horta anagu waxaan soo iibsanay oo suuq aan ku soo iibsanay ma jiro waayo lacag aan wax ku iibsanay ma baanan haysanba kooxaha nala midkii halka 40 milyan iyo waxa weeyaan 40 milyan loo dhigay anagu ma baanan haynba waxa weeyaan nimankan ciyaariyay rafaadkii adogeed iyo cadceed adogeed ka soo baxay wax dhaqaale ah oo maanta dilaa waxa sacawilnaqa maana arkin marka waxa weeyaan horta taa iyada waxaan sameynay intii aan haynay
iyo wax kaloo cusub oo dee isku jacburinay baanu maanta waxa weeyaan garoomada keenay marka kuwaasaan rajaynaa insha Allah inay iyaguna noo noqdaan waxa weeyaan kuwa dadka dee sidii ay ciyaartooydu u soo baxayeen maanta magacyada u leeyihiin loo iibsanayay in iyagana waxa weeyaan ay u noqon doonaan niman iyaguna waxa weeyaan meeqaamka ay taagayeen gaadha insha Allah kuwaasaan rajaynaa marka wasaaradda waxa weeyaan su'aasha aad sheegtay waa su'aal aad muhiim ah horta waxa weeyaan xiriirka waxa weeyaan Somaliland ee uu gudoomiye Faad waxa weeyaan wadinka ka yahay kama hayno taageeradii iyo gacan qabashadii ay maanta nala hawlgelinayeen maadaama iyagu xiriirka ka mas'uul yihiin inay garab galaan bay haydo waxa weeyaan maanta na kaxeeyaan oo na geeyaan waxa weeyaan meelaha wasaaradda waxa weeyaan waxbarashada noo tagaan iyo maamulkeeda tii runtii bay sameyn ballan buu mar noola galay gudoomiye laakiin xiriirku waxa uu idii qabtay oo idii ogolaaday inaad tartan ka qayb gashaan tartan uu mas'uul ka yahay heerka labaad kaalinta labaad baad soo gasheen waxaad sanadkan soo diyaarinaysaan waliba maalin kadib haddii rabbi qadaro heerka koowaad taa xiriirku eed kuma leh soo lama odhan karo taasi been maaha laakiin sidii xiriirku ku ololeysanayeen bilowgii hore waxay sheegeen koox waloo kastoo waxa weeyaan jirtaba inay waxa weeyaan meel ay u ciyaaraan la raadin doonaan oo kala hawlgeli doonaan marka ma dhaleecaynayo wax fiican bay aad u qabteen xiriirku waana ku mahadsan yihiin waxa weeyaan maanta tartankaa la qabtay ee aanu halkaa ka soo gudubnay iyagaa ku ammaanan oo waxa weeyaan mahadda leh laakiin waxaan leeyahay ballanqaadkii ay sameeyeen baanu ka rajaynaa insha Allah in iyaguna way noo fuliyaan anuu ma caanno laakiin waxa weeyaan waxaanu sheegaynaa in baahidaasi iyaguna ay waxa weeyaan dhinacooda aanay weli waxa weeyaan aanan ka helin aad baad mahadsantahay halkani waa garoonka Future Sports Center ee magaalada Hargeysa waxaana galabta tababar ku qaadanaya tababarkii u dambeeyay kooxda wasaaradda waxbarashada Somaliland kuwaasi oo ka mid noqonaya kooxaha horyaalka Somaliland ee caasimadda Hargeysa ciyaarahan ayaa waxa isu diyaarinaya 10 kooxood oo gabi ahaanba loo tirinaya kooxaha horyaalka caasimadda Hargeysa wasaaradda waxbarashada Somaliland ciyaartooyga ku ciyaaraya waxa horkacaya tababare Siciid Cali Muuse kaasoo tababar joogto ah ku siinaya labadii toddobaad ee u dambeeyay garoonka Future Sports Center ee magaalada Hargeysa waa Damac Galas iyo Bukaasi True Cable TV Hargeysa